بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة لمنتي وسلامتين انت كحرن janalka Kingijo official aad baad u mahadsantihiin waana salaamantihiin. Runtii waxaan kala maqnayn muddo badan, waxaan filaa muddo laga joogo 2 bilood iyo ka badan ilaa 3 bilood inaan soo fadhiisan janalkayga sababo daraadeed awgood. runtii aad baan mashquul u noqday. kolley meesha aan wax kasoo duubi jiray background-iga uma jeedin because background cusub aa ujeedin caawo videoga saacadan aan duubay waa haween. ma garan karo xilliga adiga aad daawan doontid maalin inay haween tahay. runtii waxaan ku leeyahay haween wanaagsan haddaad daawanaysa haween, haddaa maalin daawanaysidna maalin wanaagsan. runtii aad baan ugu faraxsanahay after 2 months ama after 3 months kadib inaan hortiin soo fadhiisto anigoo faraxsan oo dhool cadan iga muuqato. runtii aad baan u faraxsanahay. waa dad kolley inta i taqaano waxay igu ogaayeen inaan joogo Uganda Kampala inaan joogo. balse wax badan ayaa ka dambeeyay. inta og way ogyihiin, inta aanan ogeyn insha Allah videogan ayaa ku ogaan doontiin. horta aad baan idinkaga mahadcelinayaa dhiirigelinta mar walba aad ila garab taagan tihiin. waxaad jeceshihiin inaan horey u socdo. aad baan idinkaga mahadcelinayaa taas ilaa ka soko. aad baan idinkaga mahadcelinayaa. tan xigta saacan waxaan ku suganahay alxamdulilah dhulkeena hooyo, wadankeena Soomaaliya ayaan ku sugan alxamdulilah. ilaah wuu nabad keenay. adii muddo ayaan joogaa basaan filayo ilaa 3 isbuuc ilaa 2 isbuuc inay tahay ma aqaano, laakiin muddo ayaan joogaa. aad baan idinkaga raali gelinayaa inaan waqti dhow aanan soo duubin video because mashquul badan jira awgeed. aad baan u mashquulay. teeda kale insha Allah dhulkii hooyo, dhul barwaaqaysan ayaan joogaa. insha Allah waxaan rajeynayaa inta Soomaali ah oo Soomaali wadankooda haddana ka maqan oo qurbaas ay jiraan inay wadankooda ay dib ugu soo noqon doonaan insha Allah. qof kasta waa geedi waxaa la yiraahdaa, yani qof kasta waa safar. qof meel toos u degan ma jiro. kan qurbaha jooga maanta waa geedi meel u socda, kan Soomaali jooga waa geedi meel u sii socda. cid wadanka maanta rabta ma jiro. balse ilaah waxaan ka baryaynaa in wadankeena Soomaaliya uu nabad nooga dhigo oo ilaah subxaana watacaala noo barakeeyo. wadankeena khayraad badan ayuu leeyahay. in ilaah subxaana watacaala uu noo barakeeyo oo nabad nooga dhigo waan u duceynaynaa. adigana waxaan kaa codsanayaa, adiga i daawanayo rag ama dumar waxaa tahay, waxaan kaa codsanaynaa inaad mar walba salaad dukatid wadanka aad nooga duceysiin si nabad uu noogu helo. bacdayn intaas kadib aad baan u faraxsanahay. waxaan joogaa Soomaaliya. intaan ogeyn hadda ogaada waxaan joogaa Soomaaliya. kolley waa ujeedeen sawiradan waxaa waa markaan kasoo tegayay Nairobi ayaan soo maray. Kampala ayaa igu ogoodeen, laakiin Nairobi ayaan soo maray because corona ayaa jiray, diyaaradaha ma shaqaynaynin. kaliya waxaa laga bixi karay Nairobi ayaan soo maray Kenya. halkaas ayaan kasoo duulay oo Muqdisho caday ayaan kasoo tegay. insha Allah waxyaalo cusub inkastoo wadankii aan joogno xor ayaan wax kasta samayn karnaa. insha Allah waxyaalo cusub oo ku farxi doontiin hadday noqon lahaayeen vlogyo meelo dad badan ay yaqaanaan, laakiin muddo badan ka hor ugu dambeysay ayaan idin soo bandhigi doonaa sida vlogyada. insha Allah dalxiisyada waxay noqotaba wax badan, iyo hadday ribaayadooyin noqon lahaayeen iyo insha Allah wax cusub iga filo hadduu Ilaah yaraahdo. teeda kaleeto videoga fadlan haddii intana laga soo gaartay videoga like noo saar, waa naga codsi. subscribe-na channelka ha nooga iloobin. inta u saaran waa mahadsantihiin, inta u saarneen oo ku cusub i daawanayaan fadlan ha noo saaraan, waa naga codsi. aad baad u mahadsantihiin asxaabteyda qaaliga. waan i jeclahay mar kasta iyo meel kasta aad joogtihiin. waan i jeclahay
aad baan idin jeclahay. haddana waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.